بسم الله الرحمن الرحيم رمضان wanaagsan daawadayaal waa ayaan la geedii afraxood idin la socodsiinaya wararkii ugu dambeeyay arrimaha Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad wadanka TV ku daawad doontaana waxa kamid ah hal meel oo reer waqooyiga ka hoos baxsan ilaa 1990 marka ay koonfurta ka hadlayaan wadanka ayaad ku daawad doontaan islaamku ma qaba in la isqasbo caalim Talyaani ah oo diiday in Silvia Romano ay qabto jira nafsaani ah si wanaagsanna u sharaxay waxa ay uga dhigan tahay in ay muslimtay warbaahinta oo heshay dukumeentiyo muujinaya sida Soomaaliya iyo Kenya ugu kala aragti duwan yihiin dhageysiga dacwadda badda Soomaaliya oo sheegtay xilliga suurtagalka ah ee dib loo furi karo duulimaadyadii caadiga ahaa saynisyahana helay daawo cusub oo ka hortagaysa cudurka corona Soomaaliya oo loogu deeqaya lacag gaaraysa 480 milyan oo euro iyo waxa lagu qabanaya ayaad wadanka ku daawad doontaan baarlamaanka Sweden oo meel mariyay in 2 milyan oo euro lagu taageerayo deen cafinta Soomaaliya iyo xoogga dalka oo howlgal ku dilay Cabdi Muxsin Sheekh Xuseen Abu Bakar qodobadaas iyo qodobo kale ayaad wadanka ku daawad doontaan waa 16 May 2020 iminkana u diyaar garooba qodobada warkaas oo fidsan haddii aad nagu cusub tahay daawade subscribe saar wadanka TV oo program baleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararka tayada leh aynu halkaan idiin soo gelino haddii saaxiibadeena nagu tixana ka mid tahay la wadaag saaxiibadaada kale si saaxiibadeena cusub uga mid noqdaan like-tana ha naga hilmaamina aan ku bilaabo marka hore markii laga hadlayo mar kale iyo midnimo in badan oo ka mid ah bulshadeeda reer waqooyi waxa maskaxdooda ku soo horeysa oo ay isweydiinayaan amaba ay ku weydiinayaan ma Muqdisho oo gobanaysa ay nagu wadaan marka ay sidaas leeyihiin waxa igu soo dhacda in inta badani bulshada waqooyi aanay midnimo Soomaaliyeed diidanayn si ay ka caga taagleenayaan deganaan la'aanta iyo amniga aan sugnayn ee Muqdisho iyo meelo kale oo koonfurta ka mid ah sida qaraxyada ismiidaaminta iyo waliba dagaalada riiqda dheeraade ee kooxda argagixisada iyo wixii la mid ah waxse bulshadeeda reer waqooyi in badan oo ka mid ah ka maqan in iyagoo xal raadinta ay ka mid yihiin oo xil weyn ka saaran yahay in ay qayb ka qaataan dejinta iyo soo gabagabeynta wixii koonfur ka jira oo dhibaato ah si amni iyo deganaansho loo wada helo loona sameyn karo wax la wada yeesho qaran iyo dawladda kuwii naga dumay 60 sanadood ummad xor ahaa oo dunida ka mid ah amaba aynu miir qabno amaba aynu waalano ayaynu nahay 60 jir haddana weli caydi iyo weliba carjow ah oo raad barasho ku jira oo la ilaaliyo cududda iyo xoogga aqoonta iyo waayo aragnimada kartida iyo hufnaanta halkarka iyo hawlkarnimada hawraarta iyo hadalka samadoonnimada iyo xaldoonnimada iyo wadaniyadda iyo daacadnimada labada bulsho waqooyi iyo koonfur oo la isla doontaa oo la isku beegaa la isu geeya oo la mideeya waxa ay noqon doonaan dhagax weyn oo markii la gujiyo keeni kara hal abuur biyo fadhiya dhaqaajin kara xitaa kuwa jilacsani waxa ay yeeshaan xoog markii ay midoobaan geesta kaleetana Franco Cardini oo ah taariikhyahan si gaara ugu xeel dheer sooyaalkii ahdiyadii dhexe ayaa sheegay in islaamku uu si cad u diidaya in qofka qasab lagu muslimiyo mar uu arinta Caaisha xog ka siiyay la istaanba Cardini ayaa sheegay in Silvia ay u islaamtay in ay dan ku aragtay xabsiga ku moodeysay amaba ay si daacad ah u qaadatay hase yeeshee aanu marna aaminsanayn in ay qabto jirada Stockholm syndrome ee uu qofku jacayl aan waaqic ahayn isaga qaado qofka qafaashi ee haysta taasoo ah war ka soo yeeray dhowr qof oo caan ah oo Talyaani ah Cardini ayaa sheegay in haddii ay sidaasi tahay aysan ka muuqateen farxadda iyo xoogga ka muuqday isla markaana si jacayl ku jira habdiiran aysan u siisan qoyskeeda iyo dadkii ay jecleed kadib markii ay muddo moogeen wuxuu soo jeediyay inaan lagu fogaanin u qiildayida amaba u micno samaynta sababta sirta ka dambaysa muslimnimada Silvia waxaan markaasi ku xadgudbaynaa sirta ka dhaxaysa qof kasta oo naga mid ah iyo nafsadiisa gudeed taasoo runtii ah waxa ay diintu u taagan tahay waa dhinac shakhsi ah ay adag tahay in la sharaxo balse ka dhaxaysa qofka iyo waxa uu aaminsan yahay ayuu yiri Cardini oo soo jeediyay inaan dhinacaasi la aadin waxa uu falanqeeyay in diintu ay tahay habdhaqan ruuxi ah oo qaabeynaya dareen kasta iyo micno kasta oo looga quusto in sharaxaad loogu helo nolol maalmeedkeena caadiga ah si xal loogu helo qanaaca la'aanta niyad jabka quusta iyo qabyada ka muuqata jiritaankeenna waxa uu sheegay in Silvia oo markii horeba ahayd qof samafala ah ay Afrika u aaday in ay caawiso dadka tabaaleysan ee halkaasi jooga ay kadib maalmo badan oo aamusan xabsiga ku dhex qaadatay kadibna ay quraanka ka heshay macna iyo xasilooni aan ka jirin galbeedka oo ay dadku lumiyeen xiriirkii ruuxiga ahaa taasoo ah micnaha diin dhab ah
waxaa laga yaabaa in ay ogaatay oo ay aqbashay in allahu akbar aysan u taagnayn in dadka la xasuuqo balse ay jirto dhinacuu sahankeeda naga hortaagan yahay qabkeenna iyo kibirkeennu ayuu yidhi Cardini oo sheegay in muslimnimada salfiya oo aysan waxba ka ogeyn isla markaana aanay doonaynin in ay wax ka ogaadaan ay micnaha leedahay annaga cashar ayay noo wada tahay ayuu raaciyey waa sida uu yidhi xeeldheerihii cilmi nafsiga ee Sigmund Freud oo bilaadiin ahaa waxa uuna yidhi qabku xitaa guriga uu degan yahay isagu ma laha tusaale waxaad haysan kartaa hanti qurux mansab jaah balse midkoodna adigu ma xukuntid mana go'aamisid geesa kaleetana ballankii ay u qabatay maxkamadda cadaaladda adduunka in ay ku dhagaysato garnaqsiga ugu dambeeya ee ay Kenya iyo Soomaaliya ka dhiibanayaan dacwadda dhex taala ee ku saabsan soodinta badda ee labada dal ayaa ahaa bishan fooda inagu soo haysa ee June hase ahaatee sida ay muujinayaan dukumiinti ay warbaahintu aragtay oo labada dalba ay u direen maxkamadda waxaa soo ifbaxaya in ay Kenya dalbanaysa in dacwadda dib loo dhigo muddo aan cayineen sababo dhaqaale oo jira iyo culayska cudurka corona awgeed laakiin Soomaaliya waxa ay doonaysaa in dhageysiga garnaqsigu xilligii loo cayimo uu qabsoomo waxaana sida ku cad qoraalada ay maxkamaddu u gudbaysay ay kaga cabanaysaa cadaadis ay Kenya ku hayso oo arrintaasi la xiriirta Kenya waxa ay sheegtay in cudurka corona uu saameyn ku yeeshay shaqada qareenada ku matalayay dacwadda oo ay sheegtay in ay kala xayirmeen waxay Kenya sidoo kale sheegtay in xanuunka safmarka ah uu saameyn ku yeeshay dhaqaalaha dalkeeda iyadoo ay tilmaantay in miisaaniyadda dawladda dib loo eegayo si ahmiyad loo siiyo arrimaha degdega ah ee muhiimka ah sida la dagaalanka xanuunka cudurka corona oo aan lacag ay ku bixiso khidmada qareenada haatan aysan heli karin dhanka kaleetana dawladda Soomaaliya ayaa ka hortimid dib u dhigidda dhageysiga dacwadda badda iyadoo ku eedeysay Kenya in ay doonayso in muranka lagu xaliyo meel ka baxsan maxkamadda warqadda ay dawladda Soomaaliya qortay waxa ay ku sheegtay in ay tahay markii saddexaad oo ay Kenya codsato in dib loo dhigo iyadoo ka cabatay cadaadis diblomaasiyadeed oo weyn oo ka imaanaya dhinaca Kenya ra'iisul wasaare xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo warbaahintu weydiisay in arrintaasi tahay mid laga garaabi karo ayaa ku jawaabay waa run in dunida cudurkaasi uu ka dilaacay oo maqal furan oo maxkamadda gudaheeda ahi aan dhici kareynin isu socodkii aanu jirin oo duulimaadyadii lagu tagi lahaa heeg aanay jirin oo aanay shaqaynaynin oo dal walba albaabada u xidhan yihiin hase yeeshee maxkamaddu waxa ay soo saartay in shaqadeedii ay ku wadi doonto habka maqal iyo muuqaalka ah dacwadahuna ay sidaasi ku qabsoomi doonaan bisha June dalal dhowr ah ayaa dacwadahooda lagu dhageysanayaa maqal iyo muuqaal ilaa hadda halkiis ay ku dhageysatay marqaatiyana waa ay ku dhageysatay maxkamaddu maqal iyo muuqaal marka annaga waan ka hornimid waan diidnay mowqifka dawladda federaalka Soomaaliya waxa weeye in dacwadaasi maalin dib loo dhigi karin go'aankaasi ayaanu u qornay maxkamadda caalamiga ee adduunka laguna dhageysto dacwadda hab maqal iyo muuqaalka ah oo loo yaqaan video conference oo ay maxkamaddu hadda ay gacanta ku hayso kana shaqaysay tijaabadiisa ra'iisul wasaare xigeenka oo ay warbaahintu weydiisay in uu faahfaahiyo cadaadiska dawladdiisu ay sheegtay in ay Kenya saaraysa ayaa ka gaabsaday in uu wax cad farta ku fiiqo hase yeeshee waxa uu yiri horta mar walba waa jirtay in meel ka baxsan maxkamadda amaba ha noqoto African Union amaba IGAD in rabitaanka Kenya uu ahaa in meel ka baxsan lagu qaado amaba lagu dhageysto sifaad diblomaasiyadeed annagu waxaanu aaminsanahay in ay tahay arrintaasi in la soo afjaro maxkamadda gacanta ku haysana ay ka garnaqda arrinkaasi dhanka Kenya ilaa haatan wax war ah oo rasmi ah kama soo bixin oo ku saabsan waraaqahan ay ku kala aragtida duwan yihiin Soomaaliya ee ay u direen labada dalba maxkamadda cadaaladda adduunka hase yeeshee waxaa la filayaa in ay maxkamaddu go'aankaasi ay ka gaarto codsiga Kenya shaacina doonto toddobaad ka xiga geesta kaleetana dawladda Soomaaliya waxa ay dagaal adag kula jirtaa xakameynta cudurka corona oo markii laga yimaado dadka uu soo ritay iyo waliba kuwa u dhintay haddana saameyn adag ku yeeshay dhaqaalaha dalka oo horey ugu tiirsanaa xoolaha beeraha beec mushtirka iyo waliba deeqaha gargaarka ee soo gala dalka ilaha dhaqaalaha ugu weyn uu Soomaaliya ka soo galo waxa kamid ah garoomada diyaaradaha iyo dekadaha oo sanad walba laga soo xareeya canshuur aad u badan inkastoo aysan si rasmi ah lacagtaasi u soo wada gelin gacanta dawladda dhexe oo qaarkood si gaar ah ay u maamulaan lacagahaasi ka yimaada dawlad goboleedyada qaarkood madaarka aadan cadde oo ku yaala Muqdisho ayaa ah mid ka mid ah ilaha dhaqaale oo ay dawladda federaalka ay ku tiirsan tahay ku dhawaad muddo 3 bilood ahna uu xiran yahay sabab la xiriira cudurka corona wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beele ayaa hore u sheegay sababaha xirnaanshaha ila muhiim
muhiima awgii uu waddanka wajahaya dhaqaale xumo aad u badan. maareeye ku-xigeenka garoonka diyaaradaha muqdisho saacid cabdi oo la hadlay warbaahinta maxalliga ah ee dalka ayaa sheegay in inkastoo la hubin in ay suurtagal noqonayso in duulimaadyada Soomaaliya dib loo furayo bisha Julaay ee sanadkan. geesta kaleetana caalamka waxaa ka socda dadaalo badan oo lagu doonaya in la helo daawooyinka wax u taraya cudurka corona iyo sidoo kale talaal iyo daawooyin kale oo ka hortagaya in cudurkaasi sii faafo. saynisyahano ku takhasusay cilmiga biology-ga oo ka tirsan shirkadda Sorrento ee ku taala California ee dalka Mareykanka ayaa ku guuleystay in ay helaan daawo ka hortagaysa cudurka corona. shirkadda ayaa sheegtay in daawadaasi loo yaqaano STI antibody ay wax ka tarayso ka hortagga cudurka corona, waxaana daawadani ay ka joojisay corona inuu galo 100% unugyada bini'aadamka caafimaadka qaba kadib tijaabooyin la sameeyey. maamulka shirkadda Sorrento ayaa qoraal ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in shirkadooda ay awoodo in ay soo saarto bil kasta ilaa 200 oo daawooyin cusub ah isla markaana kaliya ay doonayaan in ay helaan ogolaansho degdeg ah. shirkadda soo saartay daawadan la sheegay in ay ka hortagaysa cudurka corona ayaa ka dalbatay maamulka cuntada iyo daawooyinka ee Mareykanka in ay siiso ogolaansho ay ku soo saaraysa daawadan cusub. geesta kaleetana midowga Yurub ayaa lacag badan oo 100 milyan oo euro ah ugu deeqay wadamada ku yaala geeska Afrika oo dhibaato xooggan xilligan kala kulmaya cudurka corona iyo fatahaada ka dhashay roobka. lacagtan ayuu midowga Yurub ugu talagalay in looga hortago faafitaanka cudurka corona, waxa uuna ururku sheegay in sanduuqooda laga soo saaraya lacag gaaraysa 105 milyan oo euro si loogu qaybiyo wadamada geeska Afrika. Soomaaliya ayaa lacagtan waxa ka soo gaaraysa 48 milyan oo euro, waxaana lacagtan Soomaaliya iyo wadamada kale ee loogu deeqay loo marsiin doonaa hay'adaha kala duwan si ay wax uga qabtaan faafitaanka cudurka corona iyo arrimo kale. geesta kaleetana baarlamaanka Sweden ayaa u codeeyay in Sweden ay bixiso 2 milyan oo euro oo lagu taageerayo cafinta deynta Soomaaliya ay ku leeyahay sanduuqa lacagta adduunka ee IMF. codbixinta ayaa si wada jir ah loogu taageeray soo jeedinta markii laga reebo 10 xildhibaan ee ka tirsan ergada garabka midig ee xisbiga Sefren, kuwaas oo dhammaantood ka soo horjeestay arrintaasi sida lagu sheegay warbixin uu qoray Afikis oo barta internetka ee xiriirka dhow la leh xisbiga diidan soogalootiga Sweden. ugu dambeyn ciidanka xoogga dalka ayaa gelinkii dambe ee Arbacadii howlgalla ay ka fuliyeen gobolka Shabeellada Hoose waxa ay ku dileen horjooga ka tirsanaa ururka argagixisada iyo 5 xubnood oo kale. taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka General Cabdixamiid Maxamed Dirir ayaa xaqiijiyay in howlgalkaasi lagu dilay Cabdi Muxsin Sheekh Xuseen Abubakar oo ahaa buu yiri horjoogihii argagixisada ee degmada Qoryoole iyo waliba deegaanada hoos yimaada. taliyaha ayaa tilmaamay in 6daasi xubnood lagu dilay howlgallo ballaaran oo ciidanka xoogga dalka ay ka fuliyeen wadada xiriirisa degmada Qoryoole iyo deegaanka Janaale. qodobkaasna wuxuu u dambeeyaa warkii wadanka. intii aynu ka gaarayna warkayaga xiga waxaan kaga tageynaa guul iyo gobonimo.